السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا الصومالي سيتين وفي عنتين نبض الشاقة إلهي هرتا سودين يردبتن أدونك كركيغ الصعوطة ميل كستوي صعوطة بقى الله نقا قبوجيو إلهي هرتا نقا قبوجيو دباتوين كان أدونك كركي سوريغي إلهي نقا قبوجيو maalin marka ay dhib dhacdo ay wax dhacaan Soomaalidu iyo dadka muslimkiiba waxay u carari jireen alla xaqiisa u carari jireen arsooya Soomaaliyeed waxba ni sheegaya maanta dad wixii ka qaadanaysiin kolkay dhib dhacaan ma adagti dhib markuu dhaco ee wax dhibi timaado waxa la sameyn jiray alla xaqiisa loo carari jiray oo salaada la tukan jiray oo cunta la karin jiray bariis cad intoo la kariyo caana leh iyo intoo meel la isku yimaado ilaahay la bari jiray kolka ilaahay la bariyo iyaa la sameyn jiray maxay ahaydaan la duceysan jiray salaada la tukan jiray meel waxa la isugu soo bixi jiray cidla ah meeshaas ay dadkoo dhan isugu iman jireen ilaahay lagu bari jiray ilaahay lagu toogi jiray markii ilaahay lagu bariyo ilaahay lagu toogo ilaahay markii lagu bariyo ilaahay lagu toogo ilaahay la bariyo bariiskaas la wada cuni jiray waa la isku xaaran jiray ilaahay baa la toogi jiray ilaahu balaayo naga qaba la oran jiray ilaahu shar naga qaba la oran jiray ya waa la duceysan jiray caloosha la isku furi jiray caloosha markii la isku furo ilaahay la bariyo ya iyo ilaahay da ilaahay waa qafuurur raxiim qof lagu jiro ilaahay baa og ilaahay uu gargaari adoomihiisa waar dhibtan Mareykan dhexdiisa ka socota ya lagu soo jeestay Soomaalidii say iyagu iskoogii uun iskugu cunayeen isku haysteen ayaa laga dhex faa'iideystay Soomaalidii waa kan lagu soo jeestay intii sharci lahayn waa kan la laynayo waa kan la jiidayo dhulka kuwii qashinka soo daadinaya waa kan la xirayo kuwii maxay ahaydaan shaqo tagay waa kan la xirayo kuwii jidka maray waa kan baaburka lagala degayo gabdhihii cawradiya masaakiintii waa kan dhulka la jiidayo haweenkii ragooga u shaqeynaya waa kan maxay ahaydaan guryaha ku soo xirmeen amba raggii laga kixiyay amba haweenkiiba laga kixiyay amba haweenkii guryaha ku dhuubanaya ka dhex ooyayaan ku sharciyo ku sharci lahayn walwal iyo walaac iyo waxa haysta iyo cabsi baa haysata way cabsanayaan aad bay cabsi u cabsanayaan si aan rabbigoodii adduunka keenay looga cabsanin ee u cabsanayaan dadkaas ilaahi adduunka keenay si aan looga cabsanin ee dadkii u cabsanayaan anigu haddaba mid baan ugu darsan lahaa mid haddii la iga maqlayo oo hadalkaygaasi Soomaali weyn gaadhayo ya anigu mid baan ugu darsan lahaa Soomaaliyeed haddaad hadalkayga maqlaysaan oo hadalkayga in uun ini soo gaadho anigu mid baan ugu darsanayaa waxaan inigu darsanayaa inaad horta meel iskugu soo baxdaan gurigan ku tahay kaliya aad iskugu timaadiina ama meelaha xafiisyada dadka maamulka dawladda ay maamulaya dawladda ay maxay ahaydaan iyaga aanan waxba loo dhibin meelihii meel bannaan intoo iskugu timaadiin amba meel iskuul intoo iskugu timaadiin ya inaad ilaahay ku baridiin oo bariis cad karsatiin ya bariis cad iyo caano garoora karsada ducaysta hiddaheenii hore ku noqda dib u laabta intii maxay ahaydaan cambuulo cuni jirtay cambuuladeedii ha iska cunto oo ha cambuulada iyo saliidda macsarada iyo ha cunto ha karsato intii bariis cad iyo caana garoora cuni jirtay bariiska cad iyo caanaha garoorka ha cunaan war halays calool xaadho halays ku soo laabto ilaahay xaqiisa ha loo caymado ya oo ilaahay ha la baryo oo ilaahay ha la tuugo war dab casar baan maalin dhaweeyay arkay oo ka yiri Soomaaliyay alla xaqiisa u soo noqda waxaan dhinnay oon samaynayba waa waxa ilaahay oo inoo imtixaamayo imtixaankaas waaye waa la inay imtixaamayaa الشهادة بودي استغفر الله استبودي توكل على الله ده بودي إلهي تلا ده حقي سصارت بودي
يا وين حسوسين التوحيد كيف كل واقعي وارسكو صنعنا بير شرعيين يوحوا كي شرع حسنا شرعي وهلي كي شرعي اسكا يستوي ولا ينول والكو كبي واربوقن يوحنا ويدمانا يعني wuxuu yiri horta tawxiidka ku dhawaaqo oo xagga alla u soo baxsada oo xagga alla u soo orda kolkay dhibaata in hesho oo dhibaata in haleesho alla xaqiisa loo orda alla xaqiisa loo caymadaa war ma ka dhageysanaysi ninkaasi tawxiidka oo ku dhawaaqay ma ka dhageysanaysi oo ma dhageysanaysin waxa uu yiri dibta halkayna ga timiday aan raadino Soomaali horta caloosha isku furato dhaxda isku furato ay wada cafiso meel kasto ay joogaan baa isafiyaan dhaxda la isku furto بريس عاد هلا كسر مالها لا يسكو صقر هلا تصبيح صدق هلا يستغفر الله يستو توحيدك هلا قول دواقو الله أكبر هلا يناه لا إله إلا هلا يناه قلبك ودقيا قلبك ودقيا الباب ده إلهي رحماني الباب دي سيونو بالقيا واركي أن شرع هيسني كي شرع هيسن والباوضة مش قتجا قريها الجود حرية قشينكي وح هبيراتي أفتح صوتوري كلام جد أو بناك أو بحي أو صوتوري إيه قف شقتك يا مالي قوليها دك كحريين وسوي حجرة وهدي توحيد كلا قلنا واقع حقي الله وهدي بتماد حقي على الله أرضه وروح والبوي هجاجيا وحكست ويهجاجيان على وش هذا نسكفر النص ومالي سيقول دنتهاي على وش هدي سومالي سيقول دنتهاي سكفرته oo la iswada cafiyo oo ilaahay la baryo oo dhan qalbigeena dhinac u soo jeedino waa la wada hagaagaya arrinka dhulkuna sidiisii ugu soo noqonaya bardan bay Mareykan sidii ay ahayd bay ku soo laabaysaa wixii dib iyo cusurinimo iyo xumaan wada ilaahay baa naga qabanaya wixii dib wada iyo cusurinimo iyo xumaan ilaaha boqoraa qabanaya ma qaban waayo ilaahay waa qafuur raxiim ilaahay awoodda isaga iskale yaa ilaahay isaga awoodda iskale isaga haddaan u yeedhano oon xaggiisa u cararno oon tawxiidka ku dhawaaqno oon ilaahay barino oon qalbiga isku furanno wax kasta way hagaagayaan wax kasta way hagaagayaan insha allah way hagaagayaan wax kasta insha allah wax kasta way hagaagayaan Soomaaliya anu intaas aynu ku darsanayaa ha laga daba tago hadalkii dabcasar halla eego hadalkii dabcasar dib ha loo dayo yaa maalin dhooytaan daawanayay isagoo oo haya ka soo hadlayo jooga oo la joogo ki yaraaye maxay haydaanay sharma boy yaa uu kale yahay waad helaysaa waxaaga oo dhan laakiin tawxiidka lagu dhawaaqo Soomaaliyeey waxa dambi gashan ka toobad keena ileen ilaahay waa qafuur raxiim ugu jeeda meel hadduu kugu nabad gashay uu ku keenay uu ku nabadgeliyada intuu ku keenay waliba sharci wadankii kaa siiyey uu shaqo kaa siiyey oo lacag kaa siiyey yaa wuxuu ku yiri ilaahay ana halkan ku keenay ha ku kibrine ka shaqayso anigana iaabu tasbiixso anigana dib isu xasuuso oo amuurahan iyo waxaan kala socdo oo dhan inaan awoodayda ad wax walba ku heshay garo addoonkaygii baa tahay addoontaydii iyo addoonkaygii baa tahay sidaan waddanka ku keenay dagaal iyo dhib ku halakayn lahaan kaaga soo qaaday ee kuugu sahlay waddankan gaala waayo gaaladan waan kuu sakhray waan kuu sahlay arrimahaagii oo dhan way ku hirgaleen yaa arrimahaagii way ku hirgaleen shaqaad heshay sharci baad heshay deganaashaad heshay guryaad heshay lacag baad heshay waad dhisatay guryo wixii kasta ee samaysay aniga igu xasuuso dib igu soo laabo dib u soo noqo irjic ilaa aslihi baa lagu asligiisi u soo noqo halka hawshan ka timiday iyo fudaydintan halkay kaaga timid waa alla xaqiisa u soo noqalay de alla xaqiisa maanta inaad xasuusatiin Soomaal qofkeen xasuusanaynin inuu xasuusto oo halkee ilaahay yaa ku saala gaalkana ilaahay baa ku qasbay ila gaalka ka hijrooda la yiri Soomaal hijradiisa isaga xaqiisa uma soo hijro soo rabbi hadana nama u dajin soo nama keeni ilma soo kuma dhalin soo guriyo kuma dhisanin soo lacag kamaan helin soo sharci kamaan helin soo nabadgelyo kamaan helin wixii aan ka helay oo dhan hadda iminka maanta sanadkan dib timiday oo walwaliyo walaac yimiday oo dadkii iyo dawladdii ay isku maxay daan isku dhacayaan oo dadkii la is eriyanayo
oo dowladdii guryihii ku daadanaysa oo maxaa yeelay kala dambaynta la kala dambayn meeshii ma weydo oo dadkii la ixtiraamiyan waayo oo gabdhihii qawradii laameeyada iyo baaburada lagala soo baxayo oo raggii oo shaqo tagaya shaqadii laga kacaydhsanayo la xidhxidhayo dee markaas waxa waaye meeshay wax jiraan inaan dib loo laamo dib u noqdo oo bal aan dib intoon u noqonno oon rabbi xaggiisii u laabanno yaa meel intoo iskugu soo ranno dhexdaan isku furanno oo bariis cad iyo caana karsada oo bal horta bal dib loo noqdo dabcasar hadalku lahaa laga daba tego odaygaasi waa oday maasha allah tawxiidka iyo qur'aanka siduu u akhriyayo ugu dhawaaqayo hadalkiisana runtu ka sheegaya runtii buu sheegaya laakiin wax runtiisii dib u eegayba ma jirto anin waalan noo dhaafaa la leeyahy ayaantii halkaasaa ka dhegaysanayay aw ku dhawaaqaya hadallada haddana maxay hedaanay maalin dhaweyto haddana kasoo hadlay oo haayo uu la joogay maxay hedaanay sharma boy oo uu tawxiidka ku dhawaaqayo uu dadka wax u sheegay uu bannaankaa taagnaa waar alla xaggiisaa loo laabto soomaaliya dhexdaa la isku wada furo caafimaad iyo nimcad iyo farxaddii way soo laami qalbigii iyo shaqadii iyo wixii oo dhan way soo noqonayaan nabadgelyadii kala dambayntii dowladda iyo shicibku way soo noqonaysaa bal horta inagoo qalbiga iyo maxay dhexda isku fura soomaaliya dib iskugu laabto oo masaajida gal oo maxay hedaanay alla baryo oo ilaahay baryo oo bariis cad iyo caana karsada oo bariis cad iyo maxay hedaanay cambuulo iyo saliid macsaro cuno oo bal horta aslihii u noqda irjic ilaa aslihii bal u laabta oo qalbiga isku furo laabta isku furo bal ducaysta aniga horta ha la gaarsiiyo soomaali weyn soomaali say u dhantahay meel kastoo joogto bal ha la gaarsiiyo oo ha la sheergareeyo oo subscribe ha la saaro fideogani soomaali weyn buu ku socdaa soomaali say u dhantuu ku socdaa bal ilaa aslihii u noqda irjic ilaa aslihii soomaaliyay أنت تاسع يقدر دارنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.